isuduwaha guddida qandaraasyada qaranka gobolka Togdheer injineer Shaafici Maxamuud Xaashi ayaa qalab ciyaareed ku wareejiyay kooxda hogaaminaysa horyaalka heerka labaad ee gobolka Togdheer. Kooxdan ayaa ku ciyaari doonta magaca guddida qandaraasyada qaranka ee gobolka Togdheer, waxaana qalabkaasi kooxda ugu deeqay gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Somaliland Maxamed Cabdilaahi Guuleed. Isuduwaha guddida qandaraasyada qaranka gobolka Togdheer injineer Shaafici Maxamuud Xaashi ayaa sheegay in muhiimad weyn siinayaan dhiirigelinta dhalinyarada, waxaanu si weyn ugu mahadnaqay gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Somaliland Maxamed Cabdilaahi Guuleed oo uu tilmaamay inuu ka yimid qorshaha kooxdan lagu taageerayo. Rabbil Caalamiin maanta waxaan joognaa Alamsey stadiumkii weynaa ee gobolka Togdheer. waxaan jeclahay inaan maanta halkan kaga dhawaaqo anoo ku hadlaya afkayga oo ah isuduwaha qandaraasyada ee gobolka Togdheer, afka gudoomiyaha guud ee guddida qandaraasyada Maxamed Cabdilaahi Guuleed, in maanta wixii ka dambeeya ay kooxdan ay ku ciyaari doonto magaca guddida qandaraasyada ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ama National Tender Board NTB. wixii maanta ka dambeeya dhalinyaradan waxay ku ciyaari doonaan magaca, iyadoo ay ka mid tahay siyaasadda gudoomiyaha qandaraasyada ee guud mudane Maxamed Cabdilaahi Guuleed in dhalinyarada la dhiirigeliyo, khaasatan gobolka Togdheer. maanta farxad weyn bay tahay inaan dah furo ama aan kulankan ka soo qayb galo ama aan maanta ku dhawaaqo inaad ku ciyaaraysaan magaca qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. inagoo og sportska ka dhalinyaro ahaan in la dhiirigeliya inaan ahayn wax yar, haddana gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Cabdilaahi Guuleed wuxuu ku dhiiraday ama uu sameeyey inuu kooxdan siiyo magaca ama ay ku ciyaaraan magaca qandaraasyada qaranka ama NTB National Tender Board. maanta wixii ka dambeeyana insha Allah tacaala waxay si buuxda uga tirsanaan doonaan oo ay ka mid ahaan doonaan xafiiska qandaraasyada qaranka ee gobolka Togdheer. insha Allah tacaala sidii caadada idin ahayd waxaan idin rajaynayaa guul. insha Allah tacaala waxaan idin rajaynayaa inaad koobka aad ku jirtaan aad keeni doontaan xafiiska guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer insha Allah tacaala. markasta garabkiina aanu taagannahay waa idin dhiirigelinaynaa, saacad kasta iyo siki kasta waa idinla joognaa insha Allah tacaala. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. waxa kale aanu maanta halkan ku guddoonsiinaynaa oo aanu guddoonsiinaynaa laba dirays oo ah diraysadii ugu horreeyay maadaama aanu siinay magacii guddida qandaraasyada qaranka oo ay ku ciyaari doonaan insha Allah tacaala. waxaanu guddoonsiin doonaa labadii dirays ee ugu horreeyay insha Allah tacaala. wixii dambe insha Allah tacaala waxaad ka mid tihiin qandaraasyada qaranka, waxaanaad insha Allah tacaala dee marba intii taalena dhigay awooddeena ayaynu insha Allah tacaala aanu idin dadaali doonaa, aanu idinkula joogi doonaa, aanu idinku garab taagnaan doonaa insha Allah tacaala. tababaraha kooxdani iyo Bedar oo ka mid ah dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Somaliland Maxamed Cabdilaahi Guuleed uga mahadnaqay taageerada iyo dhiirigelinta dhalinyarada sportiska. waxaan uga mahadnaqay anagoo ah ku hadlaya maamulka kooxda hay'adda qandaraasyada guddida qandaraasyada qaranka. insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa magaca aanu qaadanay maanta inaanu ka waajibaadkiisii oo gudan doono. aanu koobka insha Allah tacaala aan ka tirsanay anagoo hoggaanka hayna kuna hayna 3 dhibcood. maanta insha Allah tacaala haddaan guuleysano waxaan ku qaban doonaa tartanka 6 dhibcood insha Allah tacaala. waxaan rajaynayaa guul tiimkayga. waxaan kaloo mahadnaqayaa halkan uga mahadnaqayaa dadka ay ugu horeeyaan insha Allah tacaala magaca nagala garab galay oo ugu horeeyo isuduwaha hay'adda, ugu horeeyo gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka. waxaan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan la soo koobi karin farxadeeda anagoo maanta halkan ka mateli doona. marka horena aanan magac dahaysan imikana dhiirigelintii dhalinyarada insha Allah tacaala. 2 tartan horaan ciyaarnay 4 tartan halkan laga qabtay garoonka oo heerka labaada. labadii ugu dambeeyay insha Allah deewo yeelano koobkooda anaga ku guuleysanay. waxaan rajaynayaa kana sidii caadada noo ahayd inaanu insha Allah tacaala keen doono koobka. maanta waxaan joognaa stadiumka Alamsey Stadium. waxaa qalab dirays iyo magacaabisba lagu sameeyay kooxda horyaalka heerka labaad haysata ee gobolka Togdheer hogaaminaysay ciyaarteedii lixaadna ciyaaraysa maanta. waxaan rajaynayaa inay hoggaankeeda sii haysato, waxaana qaadatay guddida qandaraasyada qaranka ee gobolka Togdheer. waan u mahad celinayaa isuduwe Shaafici, gudoomiyaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Maxamed Cabdilaahi Guuleed. waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin maadaama aad taageerteen dhalinyaro. waxaan rajaynayaa in noqonayso kooxda ka soo bixi doonta biida ee u soo gudbi doonta eeda. Jaamac Salebaan Cumar Gadhka, Bulsha TV, magaalada Burco.